السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين شيق وكل علي وهذا الهيس ولا وسيرك الدعاية دي كتريكوتينتا هتلر جوزيف جوبلس weerahaas oo maantadan la joogo ah wadooyinka la adeegsado markii dacaayada la faafinayo iyadoo beentu ay raad gaaban tahay balse qacdo hore ay guul lama filaan ah dhaliso. dagaalka duulaan maskaxeedka waxa uu ka khatar badan yahay dagaalka tooska ah ee xabadda la isu adeegsado. dacaayadu waxa markeedii ugu horeysay isticmaalay ururada diiniga waxayna ku jeestay duul caqiidooyinkoodii kana ay guuleysatay. intaa kadib waxa ay u wareegtay dagaalada waxayna bedeshay qaabkii dagaalka loo geli jiray laguna tilmaamo intaa kadib oo siyaasadeedka ugu awoodda badan. haddii erebixin loo sameeyo af Soomaali waxa ay ku noqonaysaa kutirikuteen, af Carabina addicaaya, af Ingiriisna propaganda. dacaayadu waxa ay leedahay laba saameyn, mid togan iyo mid taban. midda togan waxa ay leedahay saameyn wanaagsan, midda tabanna waxa ay leedahay saameyn xun. waxaana marka dacaayada la faafinayo la adeegsadaa wadooyin badan kana mid tahay warbaahintu. muuqaalkan dhexdiisa waxaan kugu soo bandhigayaa xog ku saabsan propagandada. marka hore waa inaan garanaa salka ay weedhaasi ku fadhido iyo qaabka ay u horumartay. qarniyadii la dhaafay iyo qarnigan qofkii ugu horeeyay ee isticmaalay kutirikuteenta dacaayadda ama propagandada waxa uu ahaa hogaamiyihii Giriigga ee Themistocles si uu u joojiyo cadowgiisii Sarkisas 408 sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise. waqtigaas Alexanderkii weynaa waxa uu sawirkiisa ku shaabadeeyay shilin-bireedkii markaa la adeegsan jiray qaab u eg buunbuunin. sidoo kale boqorkii Roomaanka ee Julius ayaa ah kan dacaayadda in badan isticmaalay si uu u muujiyo awooddiisa iyo weynanka boqortooyadiisa. balse kaniisadda Kaatoolika ayaa in badan isticmaashay kutirikuteenta oo waxaa ku xeeldheeraaday Bob Urbaankii labaad si uu u dhaliyo dagaaladii mucatableyda taageerana uga helo dalalka Yurub. dacaayaddu waxa ay noqotay qalab ay isticmaalaan Kaatoolika iyo Protestaanka. asalka kelmadda propaganda waa Laatiini noqonaysana congregate yudi propaganda fiti, taasoo fasir ahaan noqonaysa kulanka lagu faafiyo iimaanka. waana kulan uu aasaasay boobkii Grigorihii 15aad 1622. kulankan qorshihiisu waxa uu ahaa ku faafinta mabda'a Kaatoolika magaalooyinka. qarnigii 19aad waxa ay dacaayaddu u soo muuqatay qaabka aan u fakarno maanta, waayo dadka badankiisu wax akhriska iyo wax qorista waa ay yaqaanaan. xilliyadii dacaayadda sida awoodda badan loo isticmaalay waxa ay ahayd qarnigii 19aad kadib markii ay ku kaceen Hindidu 1851 shirkad Britain laga leeyahay oo waxa ay Ingiriisku ku xeeldheeraadeen kutirikuteen ah in nimanka Hindidu ay faraxumeeyaan haweenka Ingiriiska. haddaba muxuu yahay sababta loo faafiyey dacaayaddaas? sababtu waa in shacabka Hindiga qaab dadban loo ogeysiinayo in aysan wax maamuli karin kuna ay habboon yihiin in uu Ingiriisku maamulo. ereyga propaganda waxaa markiisii ugu horeeyay la isticmaalay qarnigii tegay kadib markii uu dhacay kacdoonkii Faransiiska oo warbaahinta ayaa isticmaashay dacaayado ay shacabka ku saameynayaan. waana waxa ku dhiirigeliyey siyaasiyiintu inay u isticmaalaan danahooda. dagaalkii koowaad ayay dacaayaddu kaalinteedii heshay oo waxa uu dhaliyay boqorkii Jarmalka Wilhelm qalab dacaayadeed laga amrayo maktabadda boqorka. qorshuhu waa in lagu faafiyo dowladaha deriska in Jarmalku uu saaxiib wanaagsan yahay. waxaana taalidkeeda uga falceliyey madaxweynihii Maraykanka ee Wilson isagoo u xilsaaray mufakiriin Maraykan ah sida John Dewey, Walter Lippmann iyo Edward Bernays inay aasaasaan xarun dacaayadeed laga faafiyo kutirikuteenta loona bixiyey xarunta Karail, taasoo ku beedhay cabsi iyo welwel qulubta shacabka Maraykanka. iyadoo xaruntu ay bannaanka keentay falalkii xumxumaa ee Jarmalka uu ku kacay oo arrinku waxa uu gaaray in la qariyo xaqiiqooyin fara badan beena lagu bedelo booskeedii. danta laga lahaa oo ahayd in lagu qanciyo shacabka Maraykanka in dagaalka koowaad ay galaan. sidoo kale waxaa Britain laga aasaasay wasaaradda dacaayadda oo xooggeedii isugu geysay si ay shucuubta adduunka ugu dirto Jarmalka.
tusaale ahaan waxaa tiirka la geeyey kalkaaliso Adiyeth Kafiyeel tuhun ah khiyaamo qaran iyadoo jagadeedii u adeegsatay inay caawiso ciidanka inay Jarmalka ka baxsadaan. qisadan aad ayaa lagu xeeldheeraaday iyadoo ay ka mid ahayd waxyaalaha Jarmalka lagu ceebeysanayay. markii dambena qisadan waxaa loo bedelay filim kadib dacaayadii dhaleecaynta ahayd. waxa ay dib u soo laabatay 2003 oo Maraykanka iyo NATO markii ay Ciraaq ku duuleen. dacaayadii la faafiyey moogaan ayaa ahayd inay Ciraaq haysato madaxyo nukliyeer ah si uu Maraykanka ugu qanciyo caalamka in Ciraaq lagu duulo. iyadoo dacaayadaas hadafkii laga lahaa laga gaaray, dowladihii lagu dagay inay taageeraan Maraykanka iyo NATO markii ay fahmeen arrinkaas ayay ka shallaayeen. dacaayaddu waa hab hore oo ka mid ahayd tababka dagaalka, balse amintaan la joogo xalku sidii ma ah. waxaa loo adeegsadaa in cuquul aan fakarayn lagu qabsado dana gaara iyo mid guudba laga dhaadhiciyo. waxaa dacaayadda dab sii qabadsiiyey warbaahinta oo qarnigan la joogo nukliyeer ka khatar badan. hadafka laga leeyahay waa qabsashada caqligaaga, fal iyo oraah walbana lagu yeeriyo. waxayna ragga dacaayadda xariifka ku isticmaalaan sida inay walax magaceedii ta ay ka beddelaan iyagu erebixin ay u samaystaan. dacaayadda qarnigan waxaa loo isticmaalaa habab badan sida inaad caan noqotid, lacag heshid, alaab xayeysiisid ama habab kaloo fara badan adoo meel fog ka eeginba. dalkeena Soomaaliya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha waxaa ku tiri kuteen duulaan maskaxeed, dhaqandil iyo diin dabargooyin ka socota oo maalin walba la faafinayo iyadoo lagu ciyaarayo cuquusha shacabka Soomaaliyeed. marka haddaad qof fikiraya tahay waad la garan xaaladda lagu jiro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.